Su'aasha kale, assalaamu calaykum saaxiib, waxaan ku weydiinayaa aakhiro marka la tago dadka naarta ku waarayo waa gaalada. Marka ma jiraan muslimiin ku waaraya naarta, Allah ha inaga badbaadshe. Aamiin. Aayadda kitaabka Qur'aanka, waman qaffat mawaasiinuhu fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum fii jahannama qaaliduun. micnaheedu ma aha sida ay mufasiriintu leeyihiin in dadka dambiilayaasha ah xitaa in abadiyan jahannamo ay ku waarayaan. aasaaska cidda jahannamo ku waari doonta waa dadka kelimada tawxiidka aanan ku dhiman ee gaalada ah. qof walibase marka uu dhinto waxa uu geli doonaa jahannamo. wa in minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya. dadka qaarkood iyaga oo cadaab aanan la kulmin ayay jahannamo ka soo bixi doonaan. qofka dembiilaha ahaana haddii uusan shafeeca xitaa uusan helin, dembigiisu inta uu la eg yahay ayuu jahannamo ku dhex juri doonaa, kadibna abadiyan ehlu janno ayuu qofku noqon doonaa, sida xadiiska nebiga nabadgelya naxariis korkiisa ahaatee ku soo aroortay. qof waliba oo qalbigiisa waxyar oo iimaan isaga oo ku jiro dhintaa, abadiyan jahannamo kuma uu waari doono. aayadda 93 ee suuradda nisaa, culimmadu waxa ay ku fasireen in qofka dembiga weyn ee dilka sameeyay xitaa in muddo dheer uu ku nagaan doono jahannamo, kadibna ugu dambeyn qofka muddadaa dheer kadib waxaa loo soo wareejin doonaa jannada. si kooban qof aanan gaal ahayn oo jahannamo ku waaraya ma uu jiro. ugu dambeyn qof walba dembigiisii inta uu la eg yahay marka laga dhaqo ayaa jannada loo wareejin doonaa. su'aasha kale, assalaamu calaykum ustaad cabdirashiid, waan ku salaamay. walaal salaan kadib, magacayga waa xamda oo ku nool Kenya. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal aan in badan isweydiinay ilaa haddana aanan helin jawaabteeda, taasoo ah dadka adduunka ku nool badankoodii jeceyl ayaa dhex mara. jeceylkaasi gadaashiisuna inta badan maxay isku waayaan? shukran. noloshu waxa ay ku dhisan tahay sida qadarta qoran ay tahay. qofkuna si walba wax uu u qorsheeyo, haddii qadartiisu ay khilaafsan tahay waxa uu qorsheynayay, suurtagal ma aha in qorshayaashaasi ay u hirgalaan. sidaasi darteeduna qofka uu jecel yahay inuu heli doono ama in kale waa wax qadarta qofka ku xiran iyo cidda uu gursan doono. marmar dadku waxaa kala geeya broblemyo dhanka familiga ah, marmarna jeceylka xaddhaafka xanaaq badan maadaama uu keeno, iyo isfahamwaa. waxaa dhici karta isfahamwaa xoogan darteedu in labada qof ay ku kala tagaan. su'aasha kale, assalaamu calaykum cabdirashiid, magacayga waa cabdullaahi cabdi cismaan, waxaan ku noolahay magaalada muqdisho. waa maxay silsiladda DNA-ga ee ka dhexeeya aadanaha iyo daanyeerka? waa maxay sababta culimmada sayniska ee gaaladu ay u dhahaan bani aadamku asalkiisu waa daanyeer? cilmiga biolojigu waxa uu qabaa dhammaan nooleyaasha dhulka saaran, xitaa bakteeriyada iyo bani aadamku in DNA-goodii isku shabihid laga helayo. fikirka asaasiga ee mawduucanina waxa uu leeyahay dhammaan nooleyaasha dhulka saaran oo dhan asalkoodii hal unug ayay ka wada samaysmeen. unugaasi ayaa faracmay, farac walbana faraca ka horeeya waa uu ka duwanaaday, iyada oo hadba loo fiirinayo natural selectionka iyo adaptationka deegaanka. nooleyaashuna maadaama asalkoodii hal unug ay ka wada imaadeen, DNA-goodii qaraabo ahaan haba kala dheeraadee waa kuwa asalkoodii isku mid ah. daanyeerka gaar ahaan shimbaanziga iyo bani aadamkuna waa qaraabo isku dhow oo 200 oo kun sano ka hor soo faracmay. yacni bani aadamka silsiladda tadawurka ee evolutionka, xayawaanka ugu dhow ee halka awoowa uu wada kulmiyo waa daanyeerka shimbaanziga. DNA-ga xayawaanka iyo bani aadamkuna 98, meelaha qaarkoodna 99% waxaa lagu sheegaa inaynu isku jiin nahay. fikirka ah bani aadamka iyo asalka daanyeerkuna waa fikirka evolutionka, waxa ayna ku dhisan tahay aragtida lusa last universal common ancestor, unugii ugu horey ee nolosha. su'aasha kale u dambeysa, assalaamu calaykum walaal, su'aal ayaan rabay inaad iga jawaabto. waxaa jira dad qaba cudurka siigada ama siigaysiga, sidee looga takhalusaa ama laysaga dhaafaa caadadaasi xun? waddada ugu fiican ee siigaysiga la isaga dhaafi karo waa in qofku mar walba uu ismashquuliyaa. haddii uu wax iska dareemana qofku waa in suuliga uu aadaa, waayo waxay u badan tahay in kaadi qofka ay hayso. in badanna dareennada jinsiga ee sababa siigaysigu waa kaadida qofka soo haystay inuu u maleeyo in dareenkiisi uu kacsan yahay. waxaase qofku uu isku xalin karaa in mar walba soonka uu daa'imo, ajarna waa uu ka heli, sidoo kalena isaga dembiyada qaarkood
xitaa soonka xijaab ayuu uga noqonayaa. mar walba oo qofka maskaxdiisa ama uu arka waxyaabo dareenkiisii kicin karana durba waa inuu iska xiraa uuna ka cuudo bilaystaa. waxyaabahani waxaa hubaala qofkii muddo 90 maalin ah sameeyaa in isbeddel weyn noloshiisii uu kala kulmayo. waan ku salaamay. magacaygu waa Cayuush Yuusuf Cabdulle, waxaan ku noolahay dalka Uganda. aad ayaad u mahadsan tahay maadaama aadna siisay fursaddan wax isweydiinta ah. waxaan wataa 2 su'aal. sida aad horay inoogu sheegtay, Sacuudiga waxa uu dhisi rabaa magaalo rabootyo oo keliya ay ku nool yihiin. maadaama aynu nahay dad muslimiin ah, diinta maxay ka qabtaa rabootyo in la sameeyo? midda kale, barnaamijyadaada xiisaha badan diyaarintoodu meeqa saac ayay kugu qaadataa? ma wax difficulty ah baa qaabkaad u diyaarisid? waxaan rajayn doonaa inaad iga soo jawaabtid. mahadsanid. hadafyada 2050 ee Sacuudiga mid ka mid ah waa dhisidda magaalo makiinado raboot ah oo keliya ay ku nool yihiin. magaaladanina waxaa loogu magac daray Neom. samaynta rabootyada iyo disaynkooda ma jiro dadaal dheer iyo fatwooyin badan oo laga bixiyay. qaar culimada ka mid ah waxa ay sheegaan in rabootku uu yahay nooc technology ka mid ah oo bani'aadamku u fududeynaya howlaha adag in lagu qabto sida kombiyuutarada oo kale. waxa ay sidoo kale culimada ay sheegaan in aysan wanaagsanayn in rabootka loo yeelo suurad bani'aadamka oo kale. waa in hadafka rabootka loo sameynayo uu ahaadaa u khidmaynta bulshada. haddii shuruudahan iyo kuwa la midka ahba ay yihiin hadafyada rabootka loo sameynayo, ma jirta wax dembi ah oo ka hor istaagaya in raboot la sameeyo. arrintanina waxaa wanaagsan qofka in uu la kaashado culimada. su-aasha qaybteeda kale, barnaamijyadaada xiisaha badan diyaarintoodu meeqa saac ayay kugu qaadataa? ma wax difficulty ah baa qaabkaad u diyaarisid? waxaan rajaynayaa inaad iga jawaabtid. diyaarinta barnaamijyada aan halkani soo geliyo waxa ay u kala qaybsan yihiin 2 qaybood, kuwa fudud iyo kuwa dhib badan. waxa ugu badan ee adag waa helista iyo akhrinta xog cusub. mar haddii xog la hela, aad ay u fududahay saacad ama 2 saac in ka yar in barnaamijka lagu diyaariyo. muuqaalada qaarkood waxa ay qaataan diyaarintooda ugu badnaan 3 saac, halka kuwa kalena ay qaataan 1 maalin ama 2 maalin wax ka sii badan. tanina waxay hadba isku beddeshaa mawduuca aan ka hadli rabo. si kooban, shaqo walba waxa ay leedahay dhib u gaar ah. su-aasha xigta, assalaamu calaykum. magacaygu waa Sharmaake Maxamed Xasan, joogana Muqdisho. su-aasheedu waxay tahay, waxaan ognahay in dhulku uu yahay sida kubad. miyuu wareegaa dhulka? noocyada wareegga dhulka iyo xiriirka wareegga dhulka iyo kownka ka dhexeeya iga jaahil bixi. mahadsanid. wax walba ee dhulka saaran iyo wax walba ee kownka gudihiisa ah waxay ku jiraan dhaqdhaqaaq. ma jiro waxaanan dhaqdhaqaaqin ee kownka dhexdiisa ku jiro. dhaqdhaqaaqa qaarkii waxa uu noqon karaa mid aanan la dareemin, balse heerka atomic levelkooda haddii la fiiriyo waxaa la arki karaa in wax walba dhaqdhaqaaq ay ku jiraan. dhulkuna maadaama kubad oo kale uu yahay, wuxuu leeyahay qad gaar ah uu ku dhaqdhaqaaqo. dhaqdhaqaaqa dhulkanina waa waxa ay ka samaysmaan habeen iyo maalin. Maraykanka markay u tahay maalin, inagu waxay inoo tahay habeen. tani sababteeduna waa in qaaradda Maraykanka ay ku taala meel gaar oo gees ah dunida inteeda kale ka fog. dhulkuna maadaama wareeg uu ku socdo qaybta xilliga uu iftiinka qoraxda uu ku dhaco, waxay u tahay maalin, halka inaguna xilliga qoraxda aynu ka qarsannahay inoo tahay habeen. waa sababta habeen iyo maalin ay uga samaysmaan wareegga dhulka. dhaqdhaqaaqani dhulka sidoo kale waxaa ka samaysma dabeelaha iyo xilliyada sida jiilaalka, xagayga iyo waxyaabaha la midka ah. dhulka waxa uu ka tirsan yahay sistamka qoraxda. sistamkani qoraxdana waxaa ku jira meerayaal aad u badan. meerayaashani mid ka mid ahna waa dunida. dhulkana halkani ama sistamkani gudihiisa ayuu ku socdaa. kownka guud ahaan marka la fiiriyana, meero walbo ama xitaa xidigyadu waxa ay leeyihiin sistamyo sida sistamka qoraxda oo kale. mid walbana goobtiisa ayuu ku dhaqdhaqaaqaa. assalaamu calaykum. magacaygu waa Maxamed Deeq Cabdalla, joogana Muqdisho. walaalkay, waad mahadsan tahay. waxaan qabaa 2 su'aal. su-aasha koowaad, cirka waan garanay, balse caadka muxuu yahay? qaac miya daruurahan? maalin walbana waa la arkaa. intee ayay ka yimaadaan? haddii qaac aysan ahaynna maxay ayay yihiin? daruuruhu waxay ka samaysmaan uumibaxa biyaha, neefta bani'aadamka uu neefsado, iyo xayawaanada iyo xitaa dhididka dhirta.
ilayska qoraxda markuu biyaha ku dhaco qayb ka mid ah biyaha inaga oo aanan ka banqabin ayay uumi baxaan. Uumi baxanina si kastoo inagu aad inoola yaryahay, haddana marka lagu fakaro guud ahaan dunida waa mid samayn kara daruuro waaweyn. Daruurta sida asalka waxay xambaarsan tahay molekulo biyo ah. Molekuladani biyaha ahna cirka ayaa malaayiin toon iyagoo ayay ku wada kulmaan. Marmar waxaa dhacday qabow dartiisa inay u gudbaan heerka qabowga ee barafka. Waxa ayna leedahay daruurta midabyo kala duwan. Daruuraha qaarkood waa kuwo furfuran oo caddaan ah, qaarkoodna waa kuwo gaduud ah, halka kuwo kalena mugdi ama madow ay yihiin. Mid walibana in midab ay yeelato waxa ay dadku u ishaartaa cimilada adduunka sida ay noqon doonaan. Systemka isku dheelitirnaanta ee Alle koonkani uu sameeyay mid ka mid ah waa in biyihii kululaaday ama biyihii uumi baxay in hawada iyaga oo qaac ah ay dul socdaan. Xilli kadibna isla biyihii ayaa hab roob ah iyagoo dunida ku soo daata. Dhulka oo dhanna waxa uu noqdaa mid doog ah. Si kooban, daruuraha oo dhanna waxa ay ka imaadaan biyaha badda, webiyada, hawada iyo waxyaabaha inagu aynu isticmaalno. Su'aasha labaad, dadka sameeya aflaanta galmada rag iyo dumarba sida aan ognahay, gaal iyo muslimba, arrinta galmada waa wax laga xishoodo ama qalad ah in la muujiyo ama in kaamira laga duubo. Marka dadka leh shirkadaha aflaantaasi sameeya iyo dadka aflaanta jilaba wadamada ay ku nool yihiin, sidee ayaa loogu arkaa oo bulshadu miyay dadkaasi ku dhex nool yihiin ama waa dad aanan xurriyad bulshada dhexdeed aanan ku haysan? Fadlan iga jaahil bixi, mahadsanid. Sida asalka galmada in la muujisto waxay ka hor imaanaysaa fitrada saliimka ah ee bani'aadamka Alle uu ku abuuray, gaal iyo muslimba. Balse dadka markuu iimaankooda uu daciifo ama uu zuulo, in wax kastoo dadka ay ka yaxyaxaan normaal ay u arkaan. Qof marka ay dhib ku tahay inuu duubo filim anshax dara ah, qof ayaa waxay u tahay wax caadi oo aanan laga xishoon. Sida maanta bay u jiraan rag ku dooda ama ku faana rag kale inay guursadaan ama dumarba dumar kale inay guursadaan. Dadkani waxa ay leeyihiin calamo u gaar ah, xitaa qaarkood saaxada siyaasadda waa kuwa ku jira. Mar haddii qofku uu ku dooday in qoomuluudnimada dadka ay aqbalaan, dadkani filimaanta anshaxa xun sameeyana waa dad caan ah oo bulshada ku dhex nool. Marmar waxaa dhacday xitaa in dadka jidka socda sawiro ay la galaan. Qaarkood dadkani waa dad caruur leh oo ilmo dhalay. Waxa ugu weyn ee ugu wacanna waa in jinkoodu ay ka ganacsadaan. Bulshaduna waxay isugu joogtaa hadba damiirkooda kuwa uu nool yahay waxay u arkaan wax aad u fool xun oo laga yaxyaco, halka dadka kalena ee damiirkooda uu dhintana ay u arkaan wax aad u fiican oo lagu faano amaba darajo la gaaro. Xitaa maanta wadamo kala duwan tijaabooyin lagu sameeyay su'aalaha wadooyinka ee dadka la weydiiyay ayaa waxaa la arkay qaar ay dhaheen waxaan jeclaan lahayn in aflaantaasi aan ka soo muuqano. Rag badan ayaa jira oo dood aanan ka qabin in ay guursadaan dumarka filimaantaasi jila. Si kooban, waxyaabahani iyo sida bulshada ay u arkaysa hadba waxa ay ku xiran tahay qofka waddanka uu ku nool yahay. Inaga ka muslimiin ahaanna waxa uu nebiga waa hore inoo sheegay in waxyaabahan ay imaan doonaan, caadina dadka ay u arki doonaan. Xitaa waxa uu nebigu sheegay marka dadka dhexdooda zinada ay ku dhex faafto in cudurro kala duwanna dadka lagu imtixaani doono. Qofka muslimka ee diinta yaqaanana arrintani soo shaac bixideedu waa wax uu horay u yaqaanay, waana astaan ka tarjumaysa dhawaanshaha qiyaamaha. Su'aasha xigta, magacaygu waa Hibe Maxamed, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo asalka Soomaalida. Sababtoo ah Soomaalida qaarkood waa kuwa cad, qaarna waa kuwa madow, qaarna waa maariin. Haddaba halkee ayay ka soo faracmatay Soomaalida? Ma jirto xog rasmi ah oo la diiwaan geliyay, la iskuna waafaqsan yahay halka Soomaalida asalkeedu ay ka imaadeen. Keliyana ma aha Soomaalida dadka asalkoodu aanan la ogeyn, waxaa jira qoomiyado kala duwan oo aanan la ogeyn asalkooda iyo bilowga taariikhdooda. Balse aragtida ugu xooga badan ayaa sheegaysa in asalka Soomaalidu ay tahay isku dhex jirka ama isku qaska qoomiyado kala duwan. Masaarida, Oromada, Eritreyaanka iyo Carabta ayaa macquula in dadka Soomaalida ay ka soo faracmeen. Waxaa sidoo kale jira dad badan oo ku dooda maadaama Soomaalidu ay yihiin dad isku qasan ayna yar tahay dad sida Soomaalidu
Soomaalida oo kale in dunida laga helo in ayba macquul tahay dadyooga kale ee adduunka oo dhan in Soomaalida ay ka soo faracmeen. Marka dib loo raaco fikirka origin-ka nolosha ee tilmaamay in asalka nolosha Itoobiya ay ka bilaabatay, waxa ay dadkaasi dhahaan Itoobiya iyo Soomaaliya maadaama ay isku dhow yihiin. Gruubkii ugu horreeyay ee laga soo farcamay bilowgii waxay ahaayeen dad deganaa dhulka Soomaalida ilaa Laasgeel. Laasgeel waxa uu Soomaalidu u yahay taariikh dahabi ah oo kumanaan sano ka hor raadadkii ummadihii hore tilmaamaya. Muuqaalkii barnaamijka asalka Soomaalida aan ka sameeyna waxaad ka daawan kartaa linkiga xagga sare kaaga muuqda. Su'aasha xigta, magacaygu waa Muxyidiin. Waa maxay sababta dadka Islaamka aysan u baran sidii la rabay diinta oo ay u bartaan maadiga? Dunida maanta aynu ku noolnahay systemka ugu dhisan tahay ayaa ah in qofka haddii maadiga uu xoog u saaro in meel ama darajo uu ka soo muuqanayo. Qofka saaxiibul diinka ah dunida maanta si aad ah loogama qadariyo. Waxaa la rumaysan yahay in nolosha waxba uusan ku soo kordhin. Xitaa dadka qaarkood waxa ay la culoobaan qofka arrimaha diinta ka hadla. Tani ayaana ugu wacan in waalidiinta ilmahooda ay ka dhaadhiciyaan ama ay u diraan iskuulada barashada Qur'aanka kadib. Qofkana waxbarashada Qur'aanka kadib maadi iyo waxyaabo kale uu ku mashquulo. Arrinta kale ee sabab u noqon kartana waa in dadka diinta iyo maadigaba loo kala saaray. Sida saxda aan aaminsanahay ummadana wacyigeeda qaasatan dunida Islaamka uu ku horumari karaa waa in maadiga loo sharaxaa hab waafaqsan aayadaha kowniga ee Alle u dhigay. Waxaase nasiib darro ah in maanta maadiga oo dhan uu ku dhisan yahay fikirka materialism-ka. Wixii maatan aanan ahayn ama saddexda cabir ee universe-ka ka baxsan, materialism-ku waxa uu u yaqaanaa dogmatic wax khuraafo oo asal aanan lahayn, xitaa diinba ha ahaatee. Haddii qofku uu dhaho dhibicda roobka ee daruuraha inta aysan dhulka ku soo dhicin ka hor waxaa xisaabi ama soo daaya malaga u xil saarnay Israafiil, waxaa hubaal ah in arday ama dad badan ay ku qosli doonaan. Waana sababta dadka diinta iyo cilmiga loogu kala saaray. Laakiin asalka maadiga waxaa lagala soo baxay aayadaha kowniga ee diinta falsafadeedu ay sheegtay.